isku soo noqod wanaag saxaabta qaliga ah meel walba joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaan ku jirnaa casharadani fuqshanka ama laysan gaarudista waxaa sii dhammaystiranaa casharkan tobanaad qaybtiisa labaad oo aan maraynay su-aasha 31 saa ujeediin wuxuu ka kooban yahay 4 dhibcood qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay worauf müssen Sie achten wenn Sie in eine Tiefgarage fahren wuxuu ku leeyahay maxay tahay inaad ka taxadirtid haddii aad rabtid in aad Tiefgarage waxaa la inta badan meelaha baabuurta la dhigto garaashyada baabuurta la dhigto qayb waxaa jirta hoos loo dalandaga oo hoos loo soconaya jirto marka qaybahaas hoosta la aadayo kuleetado kale markay tahay maxay tahay waxyaabaha inaad ka taxadirto ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Fußgänger laufen oft auf Fahrweg dadka oo ku lugeynaya qaar baabuurta soo degtay ama qaar baabuurta u socda inta badan waxay ku lugeynayaan ku leeyahay wadada dadka baabuurta ay maraan ay ku lugeynayaan ku leeyahay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay mein Reifen können an Enden aus und Einfahrt beschädigt werden wuxuu ku leeyahay maxaa la dhahaa isheeg meelaha cariiriga ah ee laga galo lagana soo baxo lugahayga ay saameyn karaan uu ku leeyahay inta u dambaysa ayadana meine Augen müssen sich erst an die Veränderungen Lichtverhaltens gewöhnen wuxuu ku leeyahay indhahayga waa in ay la qabsadaan uu ku leeyahay marka horetood iftiinka iska bedelayo maxaa yeelay markaa banaanka iftiinka yimaad oo aad garaashka hoos soo gashid isla markii mugda ayaad dareemaysaa marka indhahayga waa inay la qabsadaan ayuu ku leeyahay aydan teeba sax dhammaantood oo sax oo markaa meesha soo gasho dad ayaa inta badan lugeeya meelaha baabuurta ku socdaan tan kale lugaha waxaa laga yaabaa meesha cariiriga ah oo aad ka gelaysid in lugaha geesaha derbiyada kaga imaana inay lugahaaga saameeyaan iyo ayadan tan u dambeyso ayadana ah in iftiinka markaa ka yimaado oo gudaha aad soo gashid oo mugda ku noqoto inay u baahantaa marka hore indhahaaga inay la qabsadaan xaaladda markaa isbedelka ka imaanaya dhanka aragga markaa saddexdooda waa wada sax Zuerst labaad wuxuu ku leeyahay Sie wollen aus einer Reihe parkende Fahrzeuge in den fließenden Verkehr einfahren waxaa rabtaa uu ku leeyahay saf baabuur baakiman ay ku jiraan ayaa rabtaa inaad gasho dhex marta rabtaa uu ku leeyahay hinter ihnen parkt ein Lastzug waxaa baabuurta xamuulka waaweynka isjiidka ah ayaa gadaashaada ayaa baakiman ayuu ku leeyahay wie beurteilen Sie die Situation xaaladaas oo kale sida u qiimeynaysaa ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay das Einfahren ist hier ungefährlich meeshaan aan dhex maro wax dhib ma ka imanayo ku leeyahay weil Sie sich im Schutz des hinten innen stehende Lastzug befinden maadaama gadaashaada gaariga xamuulka weynka ah uu ka taagan yahay oo ku difaacayo saa darteed wax dhibaato ah oo weyn kama imanaysa ku leeyahay wuxuu ku leeyahay wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannahende Fahrzeug ihre Fahrzeug erst spät sehen wuxuu ku leeyahay maadaama wixii lagaa aragga la qariyay uu ku leeyahay baabuurta kaleetood oo ku dhadhow oo gadaashaada joogo waxaa laga yaabaa gaarigaaga in ay gadaal dambe ka arkaan laga yaaba uu ku leeyahay inta u dambeyso ayadan ah wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende Fahrzeug erst spät sehen adiga xataa sidoo kaleetood baabuurta kale oo agtaada joogto in ay gadaal dambe ka aragtaa laga yaaba markaan baabuurta ku dhow ayaa adiga gadaal dambe ka arkaysa markaana adiga ayaa baabuurta ka dambeysa oo ku dhadhow ayaa gadaal ka arkaysa ku leeyahay marka ayadan teebaa sax labada xab saxda ay waxay tahay marka wegen der verdeckten Sicht baabuurta adiga agtaada joogto in adiga gadaal dambe ka arkaan iyo adiga naftirkaaga baabuurta kale gadaashaada joogto ee ku dhow in aad gadaal dambe ka aragto marka labadooda bis ayaa sax ah su-aasha 33aad wuxuu ku leeyahay wo müssen Sie zum Backen einen Backscheiben benutzen wuxuu ku leeyahay intee u isticmaalaysaa ayuu ku leeyahay Backscheiben waxaa la backinka waxaa jirto baakad yar oo saacad ay ku sawiran tahay inta badan baakadaas oo kaleetood oo saacadda ku sawiran tahay intee u isticmaalaysa ayuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay in einschränken Halteverbot wuxuu ku leeyahay meelaha oo loo xadiday ayuu ku leeyahay in gaariga la istaajiyo in eine defect backup meel ay waagi hore dadku waxay isticmaali jireen marka backing la sameynayo saacada ku dhignaa jirta meesha oo saacadaas isticmaali jireen markay saacadaas halaysan tahay ayaa isticmaalaya ku leeyahay baashan Backscheibe lahay iyo ta u dambeysa wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist iyo meeshii calaamad ay ku qoran tahay yani haddii calaamadaas baakada camal ah sawirka daldan baa ka arki doona haddii baakada calaamada camal ah oo tabeelaha meesha ku qoran ay kugu amraan ama shildiga meesha ku qoran kugu amro ayaa isticmaalaysa ayuu ku leeyahay marka ayadan teebaa sax laba arrimood bis ayaa ku isticmaali kartaa markii saacadaas halaysan tahay oo kale hadda lama isticmaalo saacad qof isticmaasho meelaha qaar laguma isticmaalo haddii saacadaas halaysan tahay oo kale waxaa isticmaalaysaa Backscheibe iyo haddii tabeelaha lagu amro meesha ku qoran tahay saacadaas isticmaal ayadan sidoo kale waa isticmaalaysaa marka labada bis ayadan sax su-aasha 34 wuxuu ku leeyahay ein Backuhr ist noch nicht abgelaufen wuxuu ku leeyahay saacadda backinka ah weli ma dhicin ayuu ku leeyahay wie verhalten Sie sich so macaamilaysaa uu ku leeyahay Sie dürfen die Rest-Backzeit intaas ka hartay saacadda oo backing inta ka hartay nicht ausnutzen ma isticmaalayo uu ku leeyahay
nur ausnutzen kaliya waxaa isticmaalaya wenn sie eine Backscheibe verwenden waxaa isticmaalaysaa markii baashan backscheibaha oo aan idiin sheegay baashinta badan buluugda ah oo saacad dhexda ugu sawiran tahay ayaan ku bedelinaya uu kuleeyahay iyo ta u dambeysa ayadana ah ausnutzen ohne die Backuhr erneut zu bestätigen isticmaal uu kuleeyahay adigoonan saacadda dib u soo celin yani adoon dib kasoo bilaabin isticmaal ayuu kuleeyahay ayadan intee baa sax midda kaliya saxda ee waxay tahay in aad isticmaashid adigoosan saacadda dib u soo celinin ayaad isticmaalaysaa su-aasha 35aad wuxuu ku leeyahay sie kommen 10:40 waxaa imaado ku leeyahay 10:40 ayaa imaado ku leeyahay in einem Bereich an xarun ayaa imaado ku leeyahay in dem mit Backscheiben 2 Stunden lang gebackt werden darf taasoo la awoodo in 2 saacadood lagu ogol yahay inaan ku isticmaasho saacadaas ku isticmaasho lagu ogol yahay ku leeyahay welche Uhrzeit müssen Sie auf der Backscheiben einstellen saacadee marka ayaad ku aadinaysaa uu kuleeyahay ii sheeg ay baasha idin sheegay backshaba idin sheegay saacadee ku aadinaysaa uu kuleeyahay meesha waxaa imaaday 10:40 imaaday meesha marka 2 saac ayaa rabtaa inaad joogtid intee ku aadinaysaa ayuu kuleeyahay qaybta koowaad wuxuu ku 12:40 ayaa ka dhigaya uu ku dhahay tan ku xigta waxaan ka dhigayaa uu ku dhahay kooda tan ku sii xigtana waxaan ka dhigayaa uu ku yiri 12 ka dhigayaa uu ku marka teeba sax ah mid saxda ah waxay tahay inaad 12 ka dhigtid maxaa yeelay 20 daqiiqo qof xisaabinaysa malahan oo waxa la xisaabinaa saacada ku xigta marka u dhow ayaa ku aadinaysa kadibna meeshan ayuu qofka 2 saac ka tirsanaya oo marka controlaya su-aasha 36aad wuxuu ku leeyahay sie wollen auf einen Platz mit Backscheinautomaten backen wuxuu ku leeyahay waxaa rabtaa in aad meel Backscheinautomat waxaa la meelaha oo backing laga soo warqada laga soo kosta lacagta lagu shubo was haben Sie zu beachten maxay waxyaabo inaad ka taxadirto ku yiri qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay die auf den Backschein angegeben Backzeit nicht überschreiten wuxuu ku leeyahay waa inaadan dhaafin xilliga lagu siiyey backingka qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay gültigen Backschein am Fahrzeug so anbringen dass von außen gut lesbar ist waxaa dhigaysaa uu ku leeyahay baashaada markii warqada caadiga tikitka oo backingka meel waxaa dhigaysaa uu ku leeyahay oo si fiican loogu arki karo tan ku xigta ayadan ah ein Backschein ist immer überflüssig ma loo baahan uu ku leeyahay wenn Sie einen Backschein benutzen marka isticmaalaysid baakadan oo buluugda ah oo saacadda ku xisaabinayso marka ay haysid Backschein isticmaashid ma baahan ayuu ku leeyahay marka ayadan intee baa sax waxa kaliya saxda ah waxay tahay in aad dhaafin xilliga lagu talagalay iyo sidoo kale tood warqada backingka ah in aad dhigtid meel ay dadka dhan ka wada arki karaan marka labada bis ayaa sax Zuerst und dabei wuxuu ku leeyahay wozu darf an nicht laufenden Backuhren gehalten werden maxaan loo celin karin ayuu ku leeyahay saacad aan shaqeynin maxaan loo celin karin ayuu ku leeyahay zum ein oder Ausstieg markii gaari qof ka deganayo ama oo ku soo korayo lama celinayo ku leeyahay iyo tan ku xigta ayadan ah so einem kurzen Einkauf marka wax yar soo yar iibsanayso kale ayadan lama celinayo ku leeyahay iyo ta u dambayso ayadan ah zum bi oder entladen marka dukaan leedahay oo kale oo gaarigaaga dukaanka wax uu shubi siinaysid ama dukaanka wax ka soo qadanaysid oo gaarigaaga ku shubaysid ayaa aan la celin karin ayuu ku leeyahay saacada marka ayadan teeba sax ah laba arin ayaa la celin karin marka meel imaadid oo qof aad gaariga ka dejinaysid ama qof oo gaariga ku soo fuulay iyo sidoo kale marka gaariga alaab ku saaran tahay alaabtada aad ka dejinaysid ama gaariga alaab kaleetood aad saaraysid marka labada bis ayaadan saacadda celin karin su-aasha 38aad wuxuu ku leeyahay was führt häufiger zu schweren Unfall maxaa inta badan sababa ayuu ku leeyahay shilalka adag wuxuu qaybta kood wuxuu ku leeyahay ein mangelhafte Beobachtung des Verkehrs markii aad si yar ugu taxadirtay uu ku leeyahay baabuurta meesha maraysa ein Fahren mit so geringem Abstand space yar adoo u dhexeysiisa baabuurta kaleetood iyo ta u dambayso ayadan ah ein unangepasste Geschwindigkeit xawaare aadan ka taxadirin markii aad ku socotid marka ayadan teeba sax dhammaantood waa sax waxyaabaha shilalka halista ah dhaliya waxaa ka mid ah in aadan ka fiican ugu taxadirin baabuurta ama taxadir yar aad muujisid baabuurtada kula marayso in space yar aad siisid baabuurta kaleetood ee kula maraysa wadada iyo xawaaraha aad ku socotid oo aadan ka taxadirin dhammaantooda waa wada sax su-aasha 39aad wuxuu ku leeyahay Sie halten mit Ihrem Fahrzeug an gaarigaada celisa ee uu ku leeyahay Mitfahrende rechts aussteigen zu lassen taas mid oo gaari kula saaran dhanka midigta ah in aad ka dejisid ayaa rabtaa uu ku leeyahay dort verläuft ein Radweg dhankaasna
waxa marta ayuu ku leeyahay wado oo baaskiilada ah. Was sollt sie tun? Maxay tahay waxyaabaha inaad samaysid? Qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay ich sollte nur den Verkehr im Innenspiegel beobachten. Kaliya dadka baaskiilada iyo wax meesha marayo miyaarad dhexda bis ayaan ka fiirinaya ku leeyahay. Tan ku xigta wuxuu ku leeyahay ich sollte die Aussteigende auf den Radweg hinweisen. Qofka iga degayo ayaan u sheegaya ku leeyahay in meeshaan oo marayo wado baaskiil. Iyo ta u dambaysa ayadan ah ich sollte mich vergewissen dass kein Radfahrer kommt. Waa inaan ka fikiraa ku leeyahay ama isogeysiya in wax baaskiil ah meesha soo marin. Marka ayadan teeba sax ah. wax saxda marka waxay tahay in aad qofka ka deganayo aad u sheegtid in meesha wado baaskiil ay tahay si aad iskaga fiiriyo, iyo in adigana xataa isogeysiisid in meeshan ay in ogaatid yani xaqiijisid in wax baaskiil ah aysan meesha soo marin. marka labada bis ayaa sax ah. Su-aasha afartanaad wuxuu ku leeyahay wie müssen Sie ihren BKW gegen Diebstahl sichern? Sidee ugu taxadiraysaa uu ku leeyahay gaarigaaga in laga xado darteeda? qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Zündschlüssel abziehen, furahan ka siiba uu ku leeyahay Lenkrad Schloss einrasten, waxaa la marka furaha ka siibtid oo aad steerinka wax yar wareejisid waa isxiraya steerinkaaga. iyo ta u dambayso aydan ah Fenster schließen, daaqadahana waa xiraya uu ku leeyahay. qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay differentielle Sperre einschalten, aktivieren. waxaad dartaa uu ku leeyahay qaybtan oo la dhahayo differentielle Sperre oo baabuurta modernka leh inta badan oo ku sheega hadhow markii gaariga la xadi rabo. iyo ta u dambayso aydan ah Touren und Kofferraum abschließen, irdaha iyo Kofferraum waxaa la gadaal dambe gaariga meesha oo boorsooyinka waxaa lagu shubto ayaa labadaas xabane xir ayuu ku leeyahay. marka aydan teeba sax ah. waxa saxda ah waxay tahay in aad furahaada ka siibto gaariga steerinka average si oo u xirmo steerinkaaga xataa, iyo daaqadaha inaad xirtid, iyo sidoo kaleetood irdaha iyo gadaal dambe qaybta oo boorsooyinka la gashto in adigan aad xirtid. labadaas qaybood markaad samaysid ayaa gaarigaada kaga taxadiri kartaa in laga xado. su-aasha 41aad wuxuu ku leeyahay was müssen Sie beim Verlassen Ihrer BKW tun? markaa gaarigaada ka tegaysid maxay tahay waxyaabaha inaad samaysid laga rabo? qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern, waxaa ka xaqiijisaa uu ku leeyahay isticmaalka oo aan dadka loo ogoleen. qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay das Fahrzeug gegen wegrollen sichern. wegrollen wax kale maahan inta badan baabuurta lugta hoostooda wax laga geliyaa jirto Soomaaliya inta badan lagu isticmaali jirto. Soomaaliya dhagaxyo ayaa la dhigi jiray gaariga sidoo dhaqaaqin. marka inta waxaa jirta qaab baal kale loogu talagalaa jirto oo lugta hoosteeda la geliyo in si lugta hadhow aysan baabuurka hadhow uusan u sitaraxin oo hadhow lugta ay u geliyaan inta badan. ta u dambaysa ayadan wuxuu ku leeyahay vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten. marka wuxuu ku leeyahay intaadan irida aadan furin ayuu ku leeyahay baabuurka iridis aadan furin baabuurta kaa dambaysa ama dadka kaa dambeeya ama baaskiilada kaa dambeeya iska fiir ayuu ku leeyahay. marka ayadan teeba sax ah. dhammaantood waa wada sax in gaarigaaga aad ka taxadirtid in dadka aan loo ogolaan isticmaalaan, in lugta aad u dhigtid si uusan gaari u taraxin, lugta aad wax ugu celisid. iyo ta u dambayso ayadan ah in aad banaanka iska fiirisid inta aadan irida aadan furin oo dadka markaa agtaada maraya ama baabuurada ama baaskiilada meesha maraya aadan irida ugu dhufanayn. marka inaad iska taxadirtid loo baahan yahay ayuu ku leeyahay intaadan irida furin. marka dhammaantood waa wada sax. su-aasha 42 wuxuu ku leeyahay BKW steht am Fahrbahnrand, wuxuu ku leeyahay baabuurkaaga wuxuu yaalaa uu ku leeyahay Fahrbahnrand, laamiga geeskiisa ayuu yaalaa ku leeyahay. was ist beim Einsteigen richtig? in aad gaariga gashid maxay tahay waxyaabaha saxda ah uu ku leeyahay. qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay das Öffnen der Tür auf der rechten Seite ist immer gefahrlos möglich. wuxuu ku leeyahay qaybta midigta ah marka irida furiisinta badan wax dhibaato ah ma lahan uu ku leeyahay. qaybta ku xigto Mitfahrer möglich ist vom Gehweg aus einsteigen lassen, dadka inta ku raacaya inta badan meesha oo ay dadka marayaan dhanka qayb dadka ay ka marayaan ha ka soo fulaan ayuu ku leeyahay gaariga. Touren auf der Fahrbahnseite erst offen, irida oo qaybta baabuurta ay marayaan ama laamiga ay jirto marka hore fur ayuu ku leeyahay wenn es da Verkehr erlaubt, markii aysan xaalad meesha ka jirta markay ku ogolaato mar ayuu ku leeyahay. marka ayadana teebaa sax ah. marka waxaa saxda waxay tahay dadka oo gaariga ku raacaya in aad mar walba qaybta midigta ay kasoo gelisid, qaybta midigta gadaal aad dhahdid. iyo tan ayadan u dambeysa ee ah in irida dhanka baabuurta meesha marayaan ama laamiga dhanka oo jiro dadka markay baabuurta ku ogolaato aysan wax baabuur meesha maraynin ama dad aysan maraynin in aad ayadana aad furtid.
su-aasha 43 wuxuu ku leeyahay was is beim ein oder aussteigen von Kindern richtig wuxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay su-aasha 43 wuxuu ku leeyahay was is beim ein oder aussteigen von Kindern richtig maxaa sax tahay ku leeyahay markii caruurta gaariga ay galayaan ama ay ka deganayaan maxaa sax ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku yiri Kinder möglichst auf der Gehseite qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen inta badan caruurta qaybta dadka ay marayaan ka soo saar ku leeyahay kana deji tan ku xigta wuxuu ku leeyahay Kinder dürfen auf öffentliche Straßen nicht ein- oder aussteigen caruurta mamnuuc ayay ka tahay ku leeyahay in dhanka wadooyinka baabuurta ay marayaan in ay ka degtaan mamnuuc ayay ka tahay ku leeyahay iyo ta u dambaysa ayadan ah Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen caruurta dhanka wadada ah laamiga dhankeeda ah markay ka deganayaan kaliya amar markaas bis ay ka degi karaan kana soo gali karaan ayuu ku leeyahay marka teeba sax wax sax ah waxay tahay marka in caruurta mar walba ay dhanka macquulka ah dhanka dadka ay marayaan inay inta ka fuulaan kana degtaan gaariga iyo ta u dambayso ayadana ah in maxaa la dhahaa amar marka amartiisa ama isla garataan inay kaga degan karaan qaybta oo baabuurta iyo laamiga dhanka ay soo jirto marka labada bis ayaa aydan saxay su-aasha 44 wuxuu ku leeyahay worauf sollten Sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hinweisen wuxuu ku leeyahay dadka gaari kula saaran markay ka deganayaan maxay tahay inaa ogeysiiso ku leeyahay darauf das waxa ogeysiina ku leeyahay nach rechts auf Fußgänger zu achten ist in dhanka midigta marka deganayaan dadka meesha lagu heenayo in ay iska taxadiraan nach links der fließende Verkehr zu beachten ist in dhanka midigta bidixda marka ka deganayaanna baabuurta meesha maraysa in ay ka taxadiraan iyo an Radfahrer wartbepflicht sind iyo sidoo kaleetood dhanka wadooyinka ay wadada meesha baaskiilada ay marayaan in ay qasab tahay in baaskiilada ay sugaan in ay qasab tahay ayaa ogeysiinaya uu ku leeyahay marka ayadan intee baa sax labada xabo saxda waxay tahay in dhanka midigta markii ka deganaan aad ku dhahdid in ay iska ilaaliyaan dadka markaa meesha maraya oo lugeynaya iyo sidoo kaleetood markii ay dhanka bidixda ka deganayaan baabuurta ay iska ilaaliyaan marka wax ah ma jirto in Radweg mar walba baaskiil mar walba ma sugayo su-aasha 45 wuxuu ku leeyahay wie sichert man ein BKW mit Schaltgetrieb am Berg gegen Wegrollen wuxuu ku leeyahay sidee loo xaqiijiyaa gaari oo marsho ah markii oo buur dul saaran yahay si aysan lugta u wareegsanin sidee looga xaqiijiyaa uu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Erstgang oder Rückwärtsgang einlegen marshada qaybta koowaad geli ayuu ku leeyahay ama qaybta gadaal u geli ayuu ku leeyahay marshada tan ku xigta wuxuu ku leeyahay Schalthebel in Leerlauf stellen bringen wuxuu ku leeyahay marshada qaybta eberta ah qaybta dhexda ah dhig ayuu ku leeyahay oo wax marshaha gelin iyo ta u dambaysa aydan ah Feststellbremse betätigen Feststellbremse iska handbremsaha waa firsiyoonaha baalka dhahayaan oo kor loo qaadayo oo gaari lagu celinayo taas ayadana samee ayuu ku leeyahay marka ayadan tee baa saxay waxa saxda ah waxay tahay in gaariga marshada koowaad aad gelisid ama marshada labaad aad gelisid si aad u joojisid lugta inay lugta inay wareegsato iyo ta u dambaysa ayadana ah inaad firsiyoonaha aad kor u qaadid si ayadan sidoo kaleetood gaarigaaga ah u celisid marka ay marshada marka eber ka dhigtid waxa micnaa ma keenaysa gaariga wata raxaya mar walba su-aasha 46 wuxuu ku leeyahay wie sichert man ein BKW mit automatischer Kräfteübertragung gegen Wegrollen wuxuu ku leeyahay sidee loo xaqiijinayo uu ku leeyahay gaari automatic ah kii hore wuxuu ahaa marasho gaari automatic ah si lugtina u sii wareegsato mamnuuc ahayn sidee loo xaqiijinayo uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay Fehlhebel in N stellen bringen marshada caadiga waxa keenta uu ku leeyahay qaybta N ku sabrantahay geli uu ku leeyahay Feststellbremse betätigen firsiyoonaha kor usoo qaada uu ku leeyahay iyo Fehlhebel in B stellung bringen qaybta beedan ku qoran tahay P-dan ku qoran tahay ayaa ka dhigaysa uu ku leeyahay marshada waa aragteen automatiga waxa waaye saddex qaybood uu leeyahay D iyo B-dan iyo waxa camal L B-das ku aadi ayo markaan tan ku leeyahay marka aydan teeba sax waxa saxda ah waxay tahay in asmal Feststellbremse mar walba kor u jiidid si gaariga mar walba wuxuu ka difaacaya inuu gaariga dhaqaaqo iyo B-dan oo u taagan backing oo aad B-dan ayadana aad geesid marshada si gaariga marka uu istaago marka labadooda bis aydan sax
su-aasha 48 wuxuu ku leeyahay wie verhalten Sie sich bei einer Panne in einem Tunnel haddii panne waxaa la markii oo gaarigaaga meel kaaga dhexlaabo tunnel marka buundo hoosteeda markuu gaarigaada kaaga dhexlaabo maxaa sameynaysaa ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Fahrzeug möglich ist in einer Pannenbruch abstellen oo haddii macquul tahay meelaha Pannenbruch waxaa la qayb yar oo waxaa jirto gaariga in la baakimo loogu talagalay laamiga dhexdiisa qaybtaas ayaa dhigaya oo ku leeyahay isku daya inaan dhigo Motor versoglich laufen lassen motorka in oo socdo ayaan u dhaafaya oo ku leeyahay oo ma daminayo van blinklicht anschalten waxaan daaraya oo ku leeyahay nalalka faraajada ayaan daaraya oo ku leeyahay ayadana teebaa saxay waxa saxda ah waxay tahay in isku daydid inaad gaarigaaga dhigtid meel gees ah oo baabuurka la dhigi karo oo loogu talagalay baabuurta halaysan in la dhigo tunnelka dhexdiisa ama buundada hoosteeda iyo van blinklicht in aad daarto mar haddii arrinta kugu dhacdo in aad mar walba faraajaha aad daarto haddii laami dhexdiisa ama tunnelka dhexdiisa oo gaari kaaga halaabo su-aasha 49 wuxuu ku leeyahay in welche Entfernung ist das Warndreieck aufzustellen intee tahay meeqa dhir mise ayaa la dhigi karaa ku leeyahay Warndreieck waxaa la baalka saddex geesoodka ah oo inta badan markuu gaari ka halaabo gadaashooda aad dhiganaysid wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist wado oo baabuurta si xawli ah ku marayaan oo kale markuu gaarigaada kaaga halaabo ama oo istaago meeqa mitir ayaa dhiganaysaa uu ku leeyahay baasha saddex geesoodka ah gadaasha ka dhiganaysaa meeqa mitir ka baad dhiganaysaa qaybta koowaad in etwa 10 meter Entfernung 10 mitir ka dheer ayaa dhiganaya qayb ku xigta 100 mitir min ka dheer ayaa dhiganaya intan ku dambaysa aydan ah 50 mitir ayaan ka dheereynaya ayuu ku leeyahay marka teeba saxay haddii wadada aad maraysid ee wada xawli ay tahay waxaa dhiganaysaa 100 mitir ayaa iska dheereynaysaa gadaashiisa ayaa dhigaysaa baasha saddex geesoodka su-aasha kontonaad wuxuu ku leeyahay wie müssen Sie nachts ein Fahrzeug sichern sidee habeenkii gaari ayaa wax amnigiisa u xaqiijinaysaa uu ku leeyahay das an einer Stelle liegen geblieben ist kaasoo meel kaaga halaabay ama kaaga halaabay an der es eine Gefahr für den übrigen Verkehr bildet taasoo halis ku keeni karta baabuurta kaletood halis ku abuuri karta sidee u safe garanaysaa uu ku leeyahay ama u xaqiijinaysaa qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay sofort van blinklicht anschalten sida u dhaqsiyaa badan waxaan daaraya nalka farajahan daaraya ku leeyahay Rückfahr Scheinwerfer anschalten gaariga markii marshada gadaal aad soo gelisid nal gadaal ka daarma ayaa jira ta u dambaysana wuxuu ku leeyahay Warndreieck in ausreichend Entfernung aufstellen waxaa dhigtaa buu ku leeyahay baalka saddex geesoodka ah meel oo xoogaa ka dheer dhig ayo dhir inta kugu filan dhig ayuu ku leeyahay marka aydan teebaa saxay waxa aydan saxda ee waxay tahay in isla markiiba haddii uu gaari meelahaas camal kaaga halaabo in aad nalka farajaha aad daartid tan ku xigto aydan ah in nalka baalka calaamad saddex geesoodka ah oo la dhaho Warndreieck in aad in kugu filan oo dhir ah aad dhigatid sida gawaarida ka dambeysa ee u arkaan meeshan in oo gaari kaaga halaysan yahay su-aasha 51 wuxuu ku leeyahay wann müssen Sie das Warnblinklicht einschalten nalka farajaha ah gorme ayay tahay inaad daartid ayuu ku leeyahay wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen geblieben ist markii gaarigaaga oo meel kaaga halaabo an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernisse erkannt werden kann kaasoo isla markii aanan dadka ogaan karin ayuu ku leeyahay in caqabad meesha ay ka jirto tan ku xigto bei jedem oder Entladen mar walbo gaarigaaga aa wax ku shubanaysid ama aa wax ka raraysid waa daaranaysaa uu ku leeyahay wenn Sie in zweite Reihe parken markii aad laamiga qaybta labaad aad bakimaysid ayaa ayadana daaranaysaa ayuu ku leeyahay marka teebaa saxay hal mid ayaa lagu ogol yahay oo ah kaliya markii gaarigaaga oo meel kaaga halaabo meeshaas soo tahay isla markii ay dadka ogeysiisid in meeshan ka imaan karto marxalada xun su-aasha 52 wuxuu ku leeyahay Ihr PKW hat auf der Autobahn ein Reifenpanne wie müssen Sie sich verhalten wuxuu ku leeyahay in baabuurkaaga ayaa autobahnka lugta ciladkaaga timid ayuu ku leeyahay sidee u macaamilaysaa uu ku leeyahay qaybta koowaad ich muss bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren waxaan qasab igu ah in ilaa iyo meesha labaad ee laga baxayo autobahnka laga baxayo in aan meesha koowaad ee laga baxayo in aan ka baxo qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay das Warnblinklicht anschalten und mögliches weit rechts anhalten wuxuu ku leeyahay nalka farajaha ayaan daaraya inta macquulka ah dhanka midigta ayaa u badan ku leeyahay das Warndreieck in etwa 100 Meter Entfernung aufstellen nalka baalkan oo saddex geesoodka ah waxaan dhigaya ku leeyahay meel 100 mitir ka dheer ayaan dhigaya ku leeyahay aydan teeba saxay gaariga haddii oo mar lugtiisa ka halaawdo uma baahan inaad sii socotid
waxaa daaranaysaa nalka fareejaha ah baalka oo 3 geesoodka ah isagana meel 100 mitir ku jirta ayaa dhiganaysaa. su-aasha konton saddexaad wuxuu ku leeyahay sie haben eine Panne außerhalb geschlossenen Ortschaft. baabuurkaaga ayaa wuxuu kaga halaaba meel ka baxsan magaalada. ihre Kraftfahrzeug steht hinter einer Kurve auf der Fahrbahn. gaarigaagan wuxuu taagan yahay kuuvaha markii laamiga meesha ka qaloocanaya gadaashiisa ayuu taagan yahay. ku leeyahay was ist die Situation richtig? xaaladan oo kale maxaa sax ah? ku leeyahay ich muss das Warnblinklicht anschalten. nalka fareejaha ayaan daaraya. ich sollte ein Warnwest tragen. Warnwest waxaa la jaakeetka baash yarta la gashto oo inta badan security waxa xiran oo gashanaya ayuu ku leeyahay. ich muss hinter dem Fahrzeug mindestens ein auffällige warnende Zeichen aufstellen. wuxuu ku leeyahay gaariga gadaashiisa ugu yaraan waa in aan wax calaamad aan dhigo ayuu ku leeyahay, macnaha oo sheegaysa in meeshan ay wax ka jiraan. ayadan intee ba sax dhammaantood waa sax. waa inaa nalka fareejaha aad dartaa, waa inaa jaakeetka yarka ah xirataa oo cadaynayso, iyo sidoo kaleetood gaariga gadaashiisa in ugu yaraan waa inaad wax dhigtaa calaamad cadaynaysa in meeshan ay wax caalin degdeg ay ka jirto. su-aasha konton afraad sie wollen mit ihrem BKW einen anderen abschleppen. wuxuu ku leeyahay gaarigaaga ayaa waxaa rabtaa gaari kale inaad ku qaadid ayaa rabtaa. uu ku leeyahay was müssen sie wissen? maxay taa waxyaabaa inaa ogaatid? qaybta kood wuxuu ku leeyahay sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse B. mar walba waxaa u baahanta ugu yaraan waxaa u baahanta uu ku leeyahay Klasse B-ga oo ah fuuqshanka caadiga la sameeyo. tan ku xigta wuxuu ku leeyahay sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE. BE-da midka la yiraahdo ayaa u baahanta uu ku leeyahay si aad gaari kale u qaadid. marka waxaa u baahantaa bis hadaa u baahantaa inaad gaari qaadid oo qaadid ugu yaraan waxaa u baahan tahay Class B-ga bis ayaa u baahanta oo ah baabuurka caadiga ah BKW-ga B-daas uma kaliya oo waa ku qaadi kartaa gaari kale u baahan tahay. su-aasha konton shanaad wuxuu ku leeyahay ein BKW mit Bremskraftverstärker ist mit Motorschaden liegen geblieben. wuxuu ku leeyahay gawaarida xoojisa brega ayaa dhanka motorka ah cilad kaga imaada ayuu ku leeyahay. was ist beim Abschleppen richtig? in gaariga la qaado maxaa sax ayuu ku leeyahay. qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay die Wirkung der Fußbremse wird durch den stillstehenden Motor nicht beeinträchtigt. wuxuu ku leeyahay saameynta oo brega ah wax cilad dhibaato ma u keenayo ayuu ku leeyahay cilad motorka. tan ku xigta wuxuu ku leeyahay auch mit erhöhtem Badeldruck kann beim abgeschleppten BKW nur eine geringe Bremswirkung erreicht werden. wuxuu ku leeyahay xataa hadii lagu kordhiyo ku leeyahay badeldruck waxaa la sheerlabash oo la sheerlena wax oo dhibaato ayay u keenaysaa ayuu ku leeyahay gaariga marka la qaadayo. tan ku xigta ayadan wuxuu ku leeyahay möglich ist ein Schleppstang benutzen. waxaa isticmaasha uu ku leeyahay bahasha lagu jiido gawaarida lagu jiido isticmaal ayuu ku leeyahay. marka ayadan intee baa saxe? waxa saxda ah marka waxay tahay in haddii lagu kordhiyo baashan shidaalka lagu kordhiyo in ay saameyn u keenayso gaariga la jiidayo, iyo haddii markaa gaariga jiidaysana isticmaashid Abschleppstang baasha dhahayaan oo labada baabuur markay isjiidayaan waxa lagu kala xira ah labada isticmaal ayuu ku leeyahay. su-aasha konton lixaad wuxuu ku leeyahay ein BKW mit Servolenkung ist mit Motorschaden liegen geblieben. wuxuu ku leeyahay gaari oo wuxuu ku leeyahay Servolenkung waxaa lahaa steerinka baasha dheerta ee ka taagan ayaa dhanka motorka cilad kaga imaado ku leeyahay und soll abgeschleppt werden. mar walbana waa in la qaadaa ayuu ku leeyahay. was ist richtig? maxaa sax ah? qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay die Lenkung am liegen geblieben BKW steerinka gaariga halaysan ist blockiert waa la blockarinaya ayuu ku leeyahay. geht wesentlich schwer waa adkaanaysa ayuu ku leeyahay iyo ist nicht beeinträchtigt wax saameyn ahan uma keenaysa ayuu ku leeyahay. ayadan intee baa sax? marka waxa saxda waxay tahay steerinka gaariga halaabay get wesentlich schwer wax adag oo gooni ah ay keenaysa oo adkaanaysa ayuu ku leeyahay. su-aasha konton toddobaad wuxuu ku leeyahay was ist beim Abschleppen zu beachten? gaariga markaa waa gaari qaadaysid ba maxay tahay waxyaabaa ka taxadirtid? qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay der Abstand zwischen der Fahrzeug darf nicht größer als 5 Meter sein. space ku dhexeeya labada gawaari 5 mitir inay ka badnaato lama rabo ku leeyahay. Motorräder dürfen nur mit Festverbindung abgeschleppt werden. motooyinka bahasha markii xoog waa in la adkeeya ku leeyahay oo si fiican loo xira. inta u dambeysa ayadan ah Abschleppseil Abschleppstang müssen deutlich gekennzeichnet sein. labada xabo isku micnaha ah bahasha lagu jiido gawaarida
وإن أي ككنساشنت وإن أي موقتها وكلها معناها مركا أيضا تابع صحيح marka waxa saxda ah waxay tahay in spaceka 5 mitir oo san ka dheeraanin iyo sidoo kale tood baashan abschleppseilaha ama abschleppstanga qof walba soo yaqaano oo ah baasha labada gaar lagu xiro mustotlish kekensashnet san waa in ay cadda muuqata uu ku leeyahay marka labadooda bis ayaa sax ah su-aasha konton sagaalaad isla markaana su-aasha ugu dambeysa wuxuu ku leeyahay Rebecca vi hat einen defekt gaariga waa lisan yahay ku leeyahay und ist nicht mehr fahrbereit man la sii kicin kara ku leeyahay was ist beim Abschleppen zu beachten maxay waxyaabo inaad ka taxadirtid wuxuu ku leeyahay während des Abschleppens marka gaariga aad kaxinayso ku leeyahay darf die Autobahn nur als Abkürzung zur nächsten Werkstatt benutzt werden wuxuu ku leeyahay waxa qasabku uu ku leeyahay in Autobahnka meesha ugu dhow aad ka baxdo ku leeyahay oo aad Werkstatt aadid meesha lagu sameynayo ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht anzuschalten wuxuu ku leeyahay markii gaariga la qaadayo labada gaariba waa in la daaraa ku leeyahay nalkooda farajada ah iyo ta u dambeyso aydan ah ist das Abschleppseil mögliches scharf zu halten wuxuu ku leeyahay in bahalkan la qaadayo waa in aad walaaliyaa uu ku leeyahay macnaha aydan teeba sax marka waxa saxda waxay tahay in labada gaariba Warnblinklicht loo daaro nalka farajaha loo daaro iyo ta u dambeyso aydan ah ist das Schleppseil mögliches straff zu halten oo ah in gaariga ba oo adkaata bo in bahal adag in noqotaa bahalka lagu xiray labada gaari lagu kala xiray intaas ayaan kusoo gabagabeynaa casharkeeni 10aad qaybtiisii labaad haddii aa wax qalad ku aragtay ama aa su-aal qabtid mar walba ila soo xiriir kartaa inta kulankan kulan kale oo ka wanaagsan kulmi doono anigoo qaliiji ah fi amaanillah